Somaliland arrinteeda waxay soo taagneeday 30 sano marka de hawl 30 sano tiilay ma sahlana in hal subax lagu soo koobo lagu soo dhameeyo ma sahlana waa koow dadkii waxaas ay ka dhaxeeyeen 30 sano ka hor dhibkii dhacay ilaa ay maanta isaga imaan waaye ee xalli waayina anoo nin kala diyaaradiisa saarnaan tag ahaan soo xallinaan aydan xaaji suurtagelaysa ma aha ma garanaayo cidda oo kula talisay muxuu ahaay madaxweynaha arrintaas kula talisay ma aqaan laakiin de sida oo halkan laga sheegay ragga madaxweynaha talada siiyo oo la taliyaashiisa ah yaaba afkaartooda ay muxuu ahaay banaanka taalaayo meel walba ka sheegabo khaa'iniin ay ahaayeen dalkay kala gooyeen in la ciqaabo oo maxkamad la saaro waaye mid yiraaho dhibkii dhacay iyo wixii dadkaas ku dhacay maalintii dhacayeen saxay ahaydba in sidaas la yeelay ahayd yiraa iyo dad waa dadka madaxweynaha dhinacyaha ka fadhiyo oo la taliyo oo warka u sheego oo waaye aragnimada uu ka qaato oo maxaan ku radaa caqliga oo u doonto hadda waxaan u maleynaa intaas dadka Soomaaliyeed inay wax fahmi karaan dadkaas Soomaaliyeed ee dhulkaas degan laba qabiilo isdirtay lama ahayn maxaan ku iraahdaa lama ahayn reer ku duulay iyo deegaan ku duulay lama ahayn dawlad dadkeedii iyo dalkii qaybo ka mid ah inta qaadatay xasuuqday ayay ahayd dabcan marar badanna waa la wada sheegay dawladdaasi dalka oo dhan iyo dadka oo dhan dhibaato u geysatay laakiin waa si kala duwan tahay meelan meeshaas ahayn oo dalkan oo diyaarada lagu duqeeyay ma jirin meelan meeshaas ahayn oo magaalooyin dhan dhulka la dhigay oo la xaaqay oo laga dhigay ma jirin meelan meeshaas ahayn oo dadku ay maxaan ku iraahday xawaalo wadareed iyo maalin walba la soo qodo la arkay dalka qaybiska halkan waa jireen dad badan oo Soomaaliyeed kuwa dawladdu ceelasha u sameysay iyo baraagta kuwa maxaan ku iraahday falfalxumo iyo muxuu ahay magaciisa lagu rakacay kuwa akhyaartoodii iyo odayaashoodii la dilay kuwa maxaan ku iraahday si oo yaani aan fiicneen loola dhaqmo waa badnaan laakiin wixii ka dhacay waqooyiga Soomaaliya waxay ahayday wax budabar u tumanay ahayd oo xaajo gooni ahayd marka waxaan aad iyo aad u garawsanahay inay mudan tahay si gooniya in loola macaamilo si gooni looga macaamilo aan midowno aan isku darsano aan hal dal noqono waa wax ugu fiican oo aan jecelnahay ilaahay idinkiis waa qaba ana qabo dadka intiisa badanaa qabo laakiin midnimadaasi siday ku imaan kartaa la rabaa aqli iyo wanaag iyo niyad samaan iyo walaalo ay ku imaan kartaa dagaalkaas iyo xumaantaas dhacday 30 sano ka hor kadib wax weyn oo hadda koonfur iyo waqooyi kala gaaray ma jirin laakiin tiyaa wilna waad arkayseen baryahan oo dhan markii madaxweynaheena ra'iisul wasaaraha Itoobiya geynaayo meeshii la yiri wixii ka dhashay يعني dhaawacyadii iyo boogtii dib inay u xogantay oo dib looga dhiijiyay oo dib maxaan ku raacay canaaniyadeedii xanuunkeedii dib u soo wada kacday waad dhageysanayseen waa arkayseen ninka dhalinyarada ah ee baryahan oo dhan maxaa ahay hadaladiisa la hadal hayay ee dhahayay reerkeena aniga kaliya ka nool anigoo cunug yar oo cararayaana muxuu ahay reerkii oo dhan la laayay oo la dilay oo maxaan ku yiraahdaa ay diyaarada inta naga daba timid ayna wada duqeysay ani kaligay adeerka soo kuriyay ana nool walaal markaan arko wiil hooyadiis hooyo ay leedahayna waa xumaada markaan arko nin walaalkii oo walaal leeyahay garab taagayahayna waa xumaada marka waxaasi waa dhaceen hadda wiilkaasi waalidkiis iyo walaalihiis ma soo noqonayaan laakiin si uu uga qanci karo uga daawoobi karo oo qalbigiisu nadiif u ahaa karo oo tabashadaasi ay u baabi'i karto u daawoobi karto oo u cafi karo waxaas dhacay oo uga imaan karo oo wax ka wanaagsan wixii dhacay inta uu arko oo uu qanci karo uga gudbi kara la rabaa lama iloobi karo wixii dhacay waa ka hor muuqda laakiin waa la cafi karaa waa laga gudbi karaa go'aana lagu gaari karaa in maxaan ku laakiin wixii dhacay wax ka fiican waa qofka inuu arko oo si uu go'aan u gaaro taariikhdaas hore inuu inta iska gooyo iska reebo maxaan ku midan cusub ee hadda socota oo la jaan qaado marka waxaan leeyahay madaxweynuhu garawshii Soomaaliland oo ka dhiibayna
bilow fiicanayd waa fiicneed laakiin ma dhammaystirnayn gadaalna wuxuu uga cadfay oo gadaal uga xirane ma fiicnayn dadkaas ayagaa la laayay ayagaa la xasuuqay ayagaa la waxay cidda ay cudurdaar u bixinayaan wax dee oo la fahmi kara maaha waa waxyaabaha oo madaxweynuhu ay fiicnaan lahayd inuu sharaxaad ka bixiyo cidda ay cudurdaar ilaan beel la dirirta ma ahayn oo reer hebenow annaga waa idin cudur daaranay adikana noo cudur daarta la leeyahay ma ahayn marka cidda ay cudur daaranayaan ayadana waa fiicnaan lahayd si loo ogaado madaxweynuhu ka bixiyo dadkaasi hal statement oo meel laga sheegay kuma daawoobayaan horeyaa loo soo sheegay annaga dhammaadhaana raalli ahaada waa ka xunnaa waa ka cudur daaranayna kuma ayan daawoobin kuma filnayn marka wax ka weyn isi ka mug weyn isi ka qaab weyn ay u baahan tahay wixii maxaan ku iyo waayaheedii u baahan tahay iyo muxuu ahaay qaabkeeda loo waxay marka taas waxaan qabaa arrintaas arrin xoogaa magaca jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya iyo gaar ahaan dowladda maanta jirtaaba xoogaa ka sibqatay noqotay meel haddaadan ka uga raay karin loogama daraa la yiraahdo boogihii haddii aadan dhaya karin oo daaweyn karin oo bogsiin karin inaad dandanqisood maxaan ku irahday jukayso waa laga fiican yahay leenahay marka walaalahaasi hawshooda waa Soomaaliya oo dhan iyo mas'uuliyiinta mustaqbalka iyo intii timaado oo dhan ay u taala aad ayaan ugu kalsoonahay in ay wadada saxda ah la soo maro xal weyn laga gaari doono oo raali la isla waday taas marka meeshaan rabaa inaan uga haro midda kale soo hartay dadka dawlad maxaa lagu yahay qarniga 12aad waliba dawladdu maalin meel ay soo martay maalin ay muxuu ahaay boqorro iyo maalin maxaan ku iraadaa nin xoog badan oo ciidan haysto iyo maalin ay maxaan ku iraadaa askari muxuu ahaay inqilaab sameeyo xoog ku qabsaday iyo maalin hadda adduunyada waxay soo gaartay ilaa askari hadduu dal xoog ku qabsado lama aqoonsanayo lamana aqbalayo maba aqbalayna caalamku inuu yiraahdo ururka midowga Afrika uu diido igad ay diido UN meel walba laga diido xoogaad ku qabsado raasaco dadka xoog lagu ma haysan kare maanta maalinna kontar iyo dhowrka dawladda Afrika joogto intooda badan askara ka talin jirtay marka waayuhu waa socdaan haddaad ka gaabiso waa sideedo kale madaxweynuhu marar badan wuxuu ku celceliyaa waxaan xuduudaha dalkan soo xirin dalka diriska qaarna waa xun yihiin qaarna waa fiican yihiin siyaasaddu saaxiibo iyo jacayl gaara ma laha waliba dawladdu danay matashaa danahaasay ku xiran tahay qofka isku fiicnaanayaan iyo qofkaan isku fiicnaanin danahaasay ku xiran yihiin aad iyo aad ayuu madaxweynuhu ugu celceliyey maalin dhaweyto dawladda Kenya cadow inay tahay in ay wax xalaysay in laga maarmay